mase og tahay inuu jiro magacyada ilaahay ka mida oo la yidhaahda ismullaahi alacdam, magaca ilaahay ee weyn ee qofkii ilaahay ku barya ama wax ku weydiista ilaahay uu siiyo tabaaraka wa tacaala. waa xaqiiqa haddaad ilaahay ku barida magacaan alla wuu aqbalaa, mana soo celiyo ducadaas, wuuna kaa ajiibayaa ducada. aan fiirino marka magaca ilaahay ee weyn waa kee. marka koowaad waxaad ogaataan magacyada ilaahay oo dhan waa magacyo waaweyn. walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha. ilaahay wuxuu leeyahay magacyo wanaagsan ku barya. wuxuu alla leeyahay qul idcu allaha aw idcu araxmaana ayamaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa. ama waxaad ku baridaan allah ama waxaad ku baridaan raxmaan. magac kasta ood ku baridaan waxaad ogaataan ilaahay wuxuu leeyahay magacyo wanaagsan buu leeyahay. marka magac kastoo ilaahay waa magac weyn, magac kastoo ilaahayna waa magac fiican. laakiin waxaan isweydiinaynaa magaca si khaas ah nebigu uu u sheegay sal allahu alay wasalam in la yidhahdo ismullaahi alacdam ee ducada lagu aqbalo waa kee. keliya gacmaha inaad taagatid oo aad magacaas alle ku xustid, ducadaada oo dhan waa la aqbalayaa, danahaaga oo dhan waa la gudayaa, kurbadaada oo dhan alla wuu faydayaa, xawaa'ijtaada oo dhan alla wuu aqbalayaa. ismiga magacaasi waa kee. laba xadiid ayaan idiin sheegayaa oo labadaba waxaa ku jira magac uu nebigu yidhi sal allahu alay wasalam waa ismullaahi alacdam. labadaas magac ayuu ismullaahi alacdam kama baxsanee iyo ku dhaafin. xadiidka hore xadiidka buraydata bnu xusayb, xadiidkan waxaa wariyey alimaamu tirmidi iyo abu daawuud ibnu maajah, waa xadiid saxiixa. wuxuu yidhi nebiga sal allahu alay wasalam ayaa wuxuu maqlay nin ducaysanaya oo dhahaya allaahumma innii ashhadu annaka anta allah laa ilaaha ilaa ant alaxadu asamad alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. markaasuu nebigu wuxuu sal allah alay wasalam waxaad ku weydiisatay alle magiciisa weyn ee haddii wax lagu baryo u ajiibo, haddii wax lagu weydiistana uu siiyo alla tabaaraka wa tacaala. magacan waa maxay marka? magacan waxaa weeye waa ducadan intaas weeye. allaahumma innii ashhadu annaka anta allah. ilaahayow waxaan qirayaa adugu inaad tahay allah, inaad tahay laa ilaaha ilaa anta, midka keliya ee asaga xaq lagu caabudo, mid kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro. alaxadu samad, waxaa tahay midka keliga ah ee haddana samadka ee haddanaha asaga loo sheegto, ee xawaa'ijta loo kor yeelo, ee makhluuqaadka dhan ay ku tiirsan yihiin. lam yalid walam yuulad, ma lagu dhalin. waxaa tahay allaha midka aan la dhalin, asagana aan waxba dhalin. walam yakun lahu kufuwan axad, wax kuf u ah oo u dhigma sida xaas oo kalena aan lahayn. ducada labaad waxaa weeye wuxuu leeyahay anas ibnu maalik, nebigaan la joogay sala allahu alay wasalam, nin baa tukanayey markaasuu ducaystay ninkii oo wuxuu yidhi allaahumma innii as'aluka bianna laka alxamd laa ilaaha ilaa ant almannaan badiicu asamaawaati waalard yaa da aljalaali waalikraam yaa xayu yaa qayuum. markaasuu nebigu wuxuu sal allah alay wasalam wuxuu ku weydiistay alle magaciisa weyn ee haddii wax lagu weydiisto uu siiyo, haddii lagu baryana uu ka aqbalo. waa maxay ducadanna? waxaa weeye allaahuma innii as'aluka, ilaahu waxaan kugu weydiistay bianna laka alxamdu, horta mahad oo dhan inay adiga kuu sugnaatay. laa ilaaha ilaa anta, allah xaq lagu caabudona adiga ahayn ma jiro. almannaan, waxaa tahay allaha asaga wax mannaysta ee wax galladaysta ee wax bixiya. badiicu samaawaati waalard, midka samada iyo dhulkaba asagu bilaabay ee abuuray. yaa da aljalaali waalikraam, allaha weynanka iyo sharafta u saaxiib ah, allaha deeqda u saaxiibka ee deeqsiga ah. yaa xayu yaa qayuum, allaha xayiga ahe nool ee qayuumka ahe makhluuqiisa u taagan mar kaste inuu ka aqbalo ducada iyo danahooda uu u gudo habeen iyo maalin, subax iyo galab, fiid iyo suxuur, saacad kaste, daqiiqad kaste, sakan kaste,
xaalad kasta ku jirto allaha u taagan makhluuqiisa umuurtooda inuu gudo